kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij wareedkeena qodobada aad daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya Mareykanka oo la ogaaday inuu toos u saxiixay tallaabooyinkii aqoonsiga Somaliland. Haddaba qorshahan degdega ah maxaa soo dedejiyay go'aanka Trump uu ka gaaray arrinkan, miyay soo dedejinaysaa qorshihiisii berbera iyo xogo kale oo laga helaya hadda xukuumadda Xamse Barre oo weerar culus ku qaaday mucaaradka xilli ay socdaan wada hadallada dowladda iyo xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka hadda u dhaxeeya. Xaaladda oo sii cuslaanaysa, kala shaki xoogan oo ka yimid gudaha mucaaradka iyo xukuumadda dhexdeeda. Deni oo ku sii dhawaanaya markan in uu isdhiibo kadib culays saaran dadkii deegaanka oo ku kacay filla Soomaaliya oo wada abaabulkii ugu dambeeyay ee ka dhana Saciid Cabdullaahi Deni. Iiraan oo bilowday weerar cusub oo ka dhan ah saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay Khaliijka Carabta. Duqeymo hadda la bartilmaameedsaday, xarumaha ay bartilmaameedka ka dhiganayaan iyo dagaalka bariga dhexe ka socda. Wararkii ugu dambeeyay caalamka waxay nagu soo kordhay sidoo kale kama marna waa daawan doontaan, balse marka hore si aan faafahinta u guda galno waxaan ka dalbanayaa in muuqaalka aad noo share garayso, like saarto, meel fog gaarsii, qayb ka noqo saaxiibada nagu xiran ee hela xogaha xasaasiga iyo warbixinada halkan aynu kusoo gudbino adigoo rukumanaya barteena YouTube channel. Sidoo kale furaga barelka digniinta aragtidana qaybta hoose faalada ama commentiga inoogu reeba. Waa hagaaga waa 18 July haddii aynu eegno wararkii ugu dambeeyay dulmarka aad ku daawateen markana adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada ganacsi, adigii ubadkaaga si sahlan ku barta Quraanka Kariimka. Markasul Ihsaan Online waxay diyaar idin la tahay barashada Quraanka Kariimka iyo shareecada Islaamka 24 saac. Markaskan waxaa diyaar idinkugu ah macallimiin isugu jira rag iyo dumar, xeel dheerayaal ay madrasadooda ka aflaxeen arday fara badan oo ku sugan gudaha dalka iyo dibaddiisa. Si aad uga faa'iidaysato fursadan qaaliga ah, fadlan la xiriir lambarada shaashada kaga muuqda. Dowladda Mareykanka ayaa la ogaaday in ay markaan qarka u saaran tahay gaarista go'aankii ugu dambeeyay ee taageerida ictiraafka iyo aqoonsi raadintii Somaliland. Mareykanka ayaa geed dheer iyo mid gaabanba u koraya sidii uu u meel marin lahaa danaha uu ka leeyahay gudaha Somaliland, waxaana hadda xogaha aynu helayno ay muujinayaan in ay sii kordhayaan dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee hadda socda, waxaana uu dardargeliyay qorshihiisii ugu weynaa oo ku saabsan arrimaha kama dambaysta ah ee la xiriira doodii taagneed waqtiyadii ugu dambeeyay ee aqoonsiga Somaliland la xiriirta. Xukuumadda Ciro waxaa la rumaysan yahay inay kaalin muhiim markan Mareykanka iyo dhinacyo kale ay ka ciyaarayaan qaadista tallaabooyinka qaarkood, waxaana fursadaha hadda horyaala xukuumadda Ciro ay tahay mid markaasi ay dardargelinayaan, dhinacyo qaarkoodna ay gadaal ka riixayaan. Tan iyo markii lagu dhawaaqay go'aankan aadka u culus iyo tallaabooyinkan, waxa ay markaasi diiradda saarayeen qorshuhu inay markaasi dhinacyadan sii xoojinayeen, waxaana ay dardargelinayaan hadda sidoo kale arrimaha ugu waaweyn ee diiradda lagu saarayo dhacdooyinka taagan, waana midda sidoo kale hadda muujinaysa in ay Somaliland ay ka helayso garab dowlado waaweyn oo caalamka oo ay ugu horeeyaan Mareykanka, Israa'iil, Imaaraadka, Ingiriiska, sidoo kale dalal kale oo hadda ay ku jiraan safka hore. Dalalka taageersan Somaliland ayaana la soo warinayaa in ay ku biireen Switzerland, Jarmalka iyo Faransiiska, waxaana ay durba sameyn doonaan iskaashi caalamiya. Horey waxa ay Somaliland taageero uga haysatay Taiwan iyo sidoo kale dhinacyo kale, balse waxa ay si weyn hadda isku hayaan tallaabooyinna ay culusna u qaadeen dhinacyada iska soo horjeedaan oo lagu tilmaamay in go'aano waaweyn oo aad u culus oo ka dhashay arrimaha masiiriga ah ee la isku hayo iyo doodaha markaasi hadda taagan intaba ay muujiyeen inay sii xoojinayso dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee arrinkan ku aadan. Waxaa xogaha aynu helayno ay sidoo kale hadda muujinayaan in ay sii adkeynayso xaaladaha qaarkoodna ay ka dhigtay doodu mid aad u sii cuslaysa, waxaana uu hadda u muuqanaysaa in la qaadayo tallaabooyinkii ugu dambeeyay oo ay diiradda ku saarayaan Mareykanka, waana tan muujinaysa in saldhig Mareykanku uu damacsanaa inuu ka furto goobo qaarkood oo ku yaala gudaha Somaliland in markaasi uu ka shaqaysiinayay, waxaana ugu dambeysay
in Mareykanka danihiisa oo dhan uu isugu geenayay saldhig berbere markaasi uu ka furanayo, iyada oo Imaaraadka Carabtu ay tahay dalka ama gacanta uu u adeegsanayo Mareykanku in uu saldhigaasi sameeyo. Berbera waxaa ku yaala saldhig weyn, garoonka diyaaradaha waxaa maamula Imaaraadka, shirkad ay leedahay. Sidoo kale waxaa la rumaysan yahay in Israa'iil iyo Mareykanku uu halkaasi gabaad uga dhiganayo Imaaraadka oo heshiisyo waaweyn oo caalamiya kula jira Cabdiraxmaan Ciro, waxaana danihiisa uu markaan u qaadayaa si dardar leh, iyada oo la ogaaday in uu saxiixay ictiraafkii ama aqoonsigii Somaliland. Markana dhinaca kale haddii aynu eegno, xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ee Soomaaliya ayaa weerar culus waxay ku qaaday mucaaradka xilli ay socdaan wadahadaladii ugu dambeeyay. Maalmihii lasoo dhaafay, mucaaradka Muqdisho ku sugan ee shirarka la lahaa beesha caalamka iyo dowladda waxaa jiray waxyaabo badan oo isku qabteen mucaaradka iyo dowladda, balse waxaa adkaa in qodobada qaarkood lagu kala adkaado. Xaaladdu waa ay cuslayd, waxaase wadahadalada dowladda garwadeenka ah xubno guddi farsamo oo ay mas-uuliyiin dowladeed oo sarsare uu ku jiro. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dalka Saalax Jaamac ayaana qayb ka ahaa xubnahaasi, waxaana weerar toos uu ku qaaday siyaasiyiintii mucaaradka oo uu sheegay inay isku dayayaan in ay isu muujiyaan kuwa go'aamin kara mustaqbalka doorashooyinka Soomaaliya. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenku waxa uu sheegay in go'aanka ku saabsan nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa uu yahay mid u yaala shacabka Soomaaliyeed, isla markaana aysan jirin cid gaar ah oo awood u leh in ay go'aamiso hanaanka doorashooyinka dalka. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka ayaa sidoo kale ku dooday in awoodda go'aaminta doorashada ay leedahay oo keliya shacabka Soomaaliyeed, halka siyaasiyiintaasi aysan lahayn awood ay ku go'aamin karaan hanaanka doorashooyinka dalka. Kuwa waxaad arkaysaan waxa ay leeyihiin doorashada dalka ayaan go'aaminaynaa, haddana waxba kuma dhex jiraan, ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Saalax oo markaasi weerar afka ku qaaday siyaasiyiinta mucaaradka ee kasoo horjeeda dowladda. Waxaa sidoo kale uu sheegay in qodobada ugu weyn ee la isku hayo uusan ahayn qabashada doorashada lafteeda, balse uu yahay nooca doorasho ee Soomaaliya ay aadeyso, isaga oo xusay in arrintaasi ay tahay dooda dhabta ah ee u dhaxaysa dowladda iyo siyaasiyiinta mucaaradka ahi. Waa in la isweydiiyaa nooca doorasho aan rabno, ma tii odayaasha gacanta ugu jirtay, mise doorasho ay shacabka si toosa ugu doortaan qofka ay rabaan. Taasi waa dooda u dhaxaysa mucaaradka iyo dowladda, ayuu hadalkiisa sii raaciyay Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dalka. Wuxuu sheegay in dowladda federaalk Soomaaliya ay aaminsan tahay in shacabka Soomaaliyeed ay xaq u leeyihiin inay codkooda ku soo doortaan hogaankooda, halkii lagu sii jiri lahaa nidaamyadii hore ee ku saleysnaa doorasho dadban, isagoo xusay in dowladda ay ku howlan tahay hirgelinta hannaan doorasho oo shacabka fursad siinaysa in ay si toos ah doortaan madaxda ay doonayaan. Hadalka Ra'iisul Wasaare Saalax waxa uu yimid xilli ay weli socdaan doodaha siyaasadeed ee la xiriira hanaanka doorashooyinka dalka, iyadoo dowladda federaalk Soomaaliya iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ay weli ku kala aragti duwan yihiin nooca doorasho ee Soomaaliya ka qabsoomaysa, waxaana arrintan doorashada ay weli tahay mid ka mid ah qodobada ugu markaasi xasaasisan ee horyaala Soomaaliya, siyaasiyiinteeda iyo madaxdeeda, iyada oo la sugayo in wadaxaajoodyada socda ay dhinacyadu ku gaaraan is-afgarad ku saabsan hanaan doorashooyin dalka loo dhan yahay ah oo weliba heshiis ay ku yihiin dhinacyadani. Haddii aysan dhicinna waxaa sii taagnaan doona khilaafka aadka u culus ee xasaasiga ah ee haddaba u dhexeeya xubnaha mucaaradka iyo dowladda, kaasi oo gaarsiiyey heer gacan ka hadal dhinacyadu dagaal uu ku dhex mara Muqdisho 4 bishii hore ee Juun, oo ay ku dagaalameen sabab la xiriirta arrimaha doorashooyinka, banaanbax iyo buuq ay siyaasiyiinta mucaaradka wadeen iyo arrimo kale. Markaana haddii aynu eegno dhinaca kale, maamulka Puntland waxa ay wajahayaan culays siyaasadeed oo gudaha magaalada Boosaaso, Garowe iyo magaalooyin kale ka qarxay, waxaana Siciid Cabdulaahi Deni hogaamiyaha maamulka Puntland uu maaro u leeyahay khilaafka iyo buuqa siyaasadeed ee u dhexeeya hadda
isaga iyo sidoo kale dowladda dhexe. Waxaa aad loo xakameyn la'yahay dhaqdhaqaaqyada iyo tallaabooyinkan, waxaana sii soconaya dhacdooyinkii ugu waaweynaa iyo tallaabooyinkii ugu cuslaa, iyada oo ay diiradda saarayaan qayb ka mid ah dhinacyadan sidii ay usoo afjari lahaayeen tallaabooyinkan. Odayaasha dhaqanka ee Puntland ayaa ku baxay sidii loo soo gabagabeyn lahaa dooda u dhaxaysa Siciid Cabdulaahi Deni, dowladda dhexe iyo xubnaha dowladda taageersan, balse heshiisyo la galay iyo is-afgarad hordhac ahaa oo lagu heshiisiinayay dhinacyadan culeyska hadda jira ayuu Deni ka baxay sida xogaha la helayo ay sheegayaan. Waxaa ka mid ahaa heshiis uu markaasi taliyaha qeybta 54aad ee ciidanka xoogga dalka loo magacaabay Generaal Jimcaale Takar markaasi uu ku tegi lahaa magaalada Garowe oo Deni uu burburiyay hadda, waxaana taasi la rumaysan yahay inay keenayso dagaal u dhaxayn kara Deni iyo sidoo kale Generaal Jimcaale, taa oo hadda ay xoogga isugu geyn doonaan sidii ay u qaadi lahaayeen ama ay u xoojin lahaayeen dhaqdhaqaaqyada guud ee ciidankiisu, iyada oo dowladda Soomaaliya ciidamo badan ay ku dhex beeratay gudaha Puntland, taa oo ka dhigtay mid culeyska hadda jira sii kordhisay. Dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey ee la qaaday ayaase ahaa kuwo aad u cusleeyey xaalka guud ee Puntland. Villa Soomaaliya ayaana weli ku adkeysanaysa tallaabooyinkeeda, waxaana ay dardar gelinayaan qorshayaal aad xasaasi u ah iyo dhaqdhaqaaqyo culus oo siyaasadeed, waana midda hadda keentay in ay xaaladdu ay kasii daraan ama culeysaadka hadda jira uu sii adkeeyo. Dhaqdhaqaaqa guud ee taagan ayaana mar kale Puntland xaalad khatara kusii hogaaminaya. Ugu dambeyntiina haddii aynu eegno Iiraanna, markan Iiraan waxa ay bilowday weeraro cusub oo ka dhan ah saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay khaliijka Carabta. Tehran ayaa qaaday weeraro cusub oo ka dhan ah saldhigyada militari ee Mareykanka ee ku yaala dalalka khaliijka Carabta ee deriska la ah, halka Washington ay sii wado weerarada ay ku qaadayso goobo ku yaala Iiraan habeenkii oo dhan. Tehran waxay sheegtay in ay beegsatay bartilmaameedyo ku yaala gobolka oo ay ku jiraan Jordan, Kuwait iyo Bahrain, Cumaan iyo dalal kale, iyada oo maalintii 6aad, 7aad iyo sidoo kale maalinkii 8aadba loo sii socdo weeraro toosa oo soo cusboonaanaya iyo colaadaha ka taagan bariga dhexe. Cadaadiska ay saarayaan heshiis hordhaca oo lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka ayaase ah mid sii socda weli. Dhanka kale, militariga Mareykanka ayaa sheegay inuu qaaday weeraro socday 6 saacadood iyo ka badan oo meelo badan lagu fuliyey, kuwaasi oo lagu doonayay in lagu wiiqo awoodda Iiraan ay uga markaasi hanjabi karto badmaaxinta ama markaasi ay wax uga geysan karto marinka Hormuz. Isweydaarsiga weeraradan ugu dambeeyey ayaa yimid kadib markii madaxweynaha Mareykanka Trump uu uga digay Iiraan inay si wanaagsan markaasi u dhaqanto, isagoo sheegay in ay wajihi karto tallaabooyin militari oo dheeraad ah haddii aysan Iiraan dib ugu soo laaban wadahadallada. Balse Mareykanka ayaa lagu tilmaamay in isagu u wado xadgudubka dagaalka, duulaanka iyo weerarka Iiraan iyo bariga dhexba ka socda. Guud ahaan daawadayaal, barnaamij wareedkeenina waa naga intaa.